bismillaahir rahmaanir rahiim insha Allah maanta waxaynu ka hadli doonaa cudurka loo yaqaano duumada ama malaariyada afka qalaadna lagu yiraahdo malaria waana cudur kamid ah xanuunada faafa sidoo kale wuxuu kamid yahay xanuunada ugu da'da weyn dunida ee ku dhaca aadamaha waana xanuun runtii hadii aan la iska daweyn qofka uu dhiman karo hordhac yar hadii aynu sameeyno ama taariikh yar oo ku saabsan cudurkan duumada magaca malaria waa laba eray oo laga min guuriyay kalmad Talyaani ah taasoo hadaynu kala qaadno noqonaysa maal iyo eer oo ah maal kaligeed waxay u taagan tahay xun eerna waxay u taagan tahay hawo marka labada eray oo macna ahaan la isku xidho waxay noqonaysaa hawo xun ama bad air magacan waxaa bixiyay dhakhtar Talyaani ah waxaa la odhan jiray Francisco Tort qarnigii 18aad isagoo arkay dad xilligaasi aaminsanaa in cudurkani ay keento hawada xun ee ka timaada meelaha biyo fadhiisinka ah sidaasi ayuu dhakhtarku ugu magacaabay cudurkan malaria barashada asalka iyo faafida duumada ee loo yaqaano faafida duumada ee afka qalaad lagu yiraahdo epidemiology cudurkani wuxuu ku badan yahay wadamada ay ku yaalaan kulaalayaasha ama loo yaqaano tropical areas iyo wadamada la isku dhaho tropical countries ama kulaal xigeenka iyo wadamada ku hareeraysan badaha tusaale ahaan sida wadamada Sahara xigeenka Afrika ee loo yaqaano sub-Saharan African countries Aasiya iyo America iyo waliba dadyowga u badan cudurkani boqolkiiba 40 waa dadyow ku nool wadamada ku yaala kulaalayaasha iyo kulaal xigeenka Saharan and sub-Saharan countries duumadu waxay caan ku tahay dhulalka joogoodu hooseeyo iyo kuwa joogoodu sareeyo laakiin waxay aad ugu sii badan tahay dhulalka joogoodu hooseeyo sida joogaga u dhaxeeya 1600 ilaa 2150 mitir waqtiyada duumada ugu sii badan tahay waa xilliyada bilaha September ilaa December oo ah xilliyada roobaadka ee loo yaqaano guga iyo dayrta xanuunkani markaanu eegno sababaha iyo causeska ama causative agentiga ama xanuunkani waxaa sababa xasharaad loo yaqaano parasite loo yaqaano plasmodium oo u kala baxa 4 qaybood plasmodium kan waxay ka qaadi kartaa marka ay qaniinto kaneecada sumaysan ee loo yaqaano plasmodium kaasoo ku gudbinaysa qaniinyada kaneecada aan sumaysnayn inta kadib ayaa parasite-ka uu raacaa dhiiga yani marka hore kaneecada sumaysan kaneecada markay qofka qaniinto waxay ka soo qaadaysaa dhiigii oo ay infect gareysay kaneecada bacdeen waxay ku qaniinaysaa qof kale oo aan qabin xanuunkii kaasoo plasmodium kaasoo u kala qaybsama 4 qaybood parasite-ku markuu qofka qaniino waxay sii raacaysaa dhiiga deetana waxay u sii gudbinaysaa beerka kadib halkaas ayuu ku tarmayaa kadib dib ayuu ugu soo laabtaa dhiiga isagoo raaca unugyada cadcas ee dhiiga noocyada kaneecada kamid yihiin ayaa ku sii jira beerka muddo aad u dheer yani noocyo kamid ah plasmodium ama parasite-kan sababa kaneecada waxa laga yaabaa inay waqti badan ku jirto beerka bini'aadanka noocyada kala duwan ee malaariyada keenta ama parasite-ka keena malaariyada waxaa loo kala qaybiyaa ama ugu caansan 4 plasmodium falciparum plasmodium vivax plasmodium ovale iyo plasmodium malariae waa 4 nooc ee ugu caansan ee parasite-ka ama xasharaadka sababa ama keena malaariyada hadii aynu eegno kan koobaad plasmodium kii koobaad aan soo sheegnay oo plasmodium falciparum waana kan ugu badan ee sababa boqolkiiba 80 waxaa ku soo xiga plasmodium vivax waa nooca ugu yar ee cudurka keena wax dhimasho ahna ma keeno si kastaba ha ahaatee dadka qaba waxay u baahan yihiin daawo maxaa yeelay way gudbin karaan ama waxay dib ku keeni karaan qofka caafimaadka qaba waana kan ugu badan ee dadka laga helo
Parasite-kan wuxuu kusii jiri karaa jirka bini'aadanka marka qofka laga daweeyo haddii uusan qofka iska daweyn, laakiin haddii laga daweeyo way adag tahay si ugu soo laabto. Plasmodium malariae oo ah nooca saddexaad wax dhimasho ah ma keeno parasite-kan, balse wuxuu u baahan yahay daaweyn wuxuuna u fadhiisanayaa dhiigga muddo sanad ah haddii aan la daweyn. Plasmodium malariae isaguna waa qaybta saddexaad. Plasmodium ovale baa ka wada cafwan, isagana waa qaybta saddexaad ee sababa malaariyada. Isagu wuxuu ku haraa oo raacaa dhiigga wuxuuna ku tarmaa beerka. Dadka qaba noocan loo yaqaano Plasmodium ovale ee sababa kaneecada iyaguna waxay u baahan yihiin in laga daweeyo. Haddii aan laga daweynna waxaa dhici karta in weli parasite-ka uu ku jiro jirka. Nooca ugu khatarsan oo 80% xanuunka malaariyada sababa waxaa loo yaqaanaa Plasmodium vivax, waana kan ugu khatarsan dadkuna ay ku dhintaan. Badanaan wuxuu ku dhacaa dadka Afrikaanka ah ee ku nool meelaha ama deegaanada saxaraha ah ama saxaraha hoos imaada. Calaamadaha xanuunkani markii aanu eegno lagu garan karo ama qofka kasoo muuqanayo waxaa ka mid ah ama calaamadaha caanka ah ee qofku isku arkayo markuu xanuunka malaariyada ay ku dhacdo. Inkastoo malaariyada iyo la isku khaldo typhoid-ka oo labaduba ay leeyihiin labo calaamado isku mid ah oo aan la kala saari karin ilaa in la baaro ma ahane. Haddaba calaamadaha malaariyada qofka markuu ku dhacdo isku arko waxaa ka mid ah qandho zaa'id ah, jirkiisa pressure-ka jirka ama temperature-ka jirka, heerkulka jirka aad u bata, iyo weliba matag, dhidid. Qofka inuu isku arko dhidid fara badan, daal fara badan, madax xanuun, labo ama yaqyaqsi, calool xanuun, cuntada oo qofka uu ka istaago, shuban ha yaraado ama ha bato, murqo xanuun, qofka adimaha ama dhabarka oo xanuuna, iyo laabatada iyo kala goosyada oo qofka xanuuno, iyo weliba wax walbo afka uu geliyo oo qaraar la noqoto. Cunto walba afka uu geliyo waxay la noqonaysaa qaraar, saa darteed qofka cuntadii dhan buu ka go'ayaa. Haddii aynu eegno xanuunkani dadku sidee isku gudbiyaan ama sidee loo kala qaadi karaa, horta marka hore waxaa jira wax la yiraahdo transmission of malaria ama hababka ay iskugu gudbin karto, ways of transmission. Marka hore waxaa laga yaabaa qofka inuu kasoo qaado qofka qaba duumada oo dhiig laga shubo laguna shubo mid ka fiyow cudurka. Sidoo kale wuxuu ku faafi karaa in lagu kala qaado xubnaha dadku isugu deeqaan sida beerka oo kale ama keliyaha oo kale, oo qof xanuunkii qaba inuu beerkiisa ama keliyiisa qof kale u bedelo. Sidoo kale waxaa lagu kala qaadi karaa irbadaha oo laysla wadaago, masalan qofka qaba cudurka irbad lagu duray in qof kale lagu duro, ama hooyada uurka leh haddii ay xanuunka ay qabto waxay u gudbin kartaa ilmaheeda uurka ku jira xilliga dhalmada, oo waxaan loo yaqaanaa habkaas lasoo gudbiyo hooyada ilmaheeda ay soo gudbinayaan parenteral transmission ama congenital transmission. Hababka ugu gudbinta badan ee cudurkani ku faafo waa marka kaneecadu kasoo qaado dhiig qofka qaba cudurkani iyadoo qaniinyo kale ku ganta qof kale ee ka fiyo cudurkani, waxayna siiba kasoo qaadaa dhiigga qof qaba xanuunka duumada iyadoo oo dhiiggan wasakhaysan ee darisku noolaha ugxanta tiisu jiifto ku mudaysa qof aan qabin xanuunkan. Haddaba dadka u nugul xanuunkan ama waxaa loo yaqaano susceptible hosts ama dadka xanuunkan u nugul waa dadka da'doodu ka hooseyso 5 sano ama caruurta ay ka hooseyso da'doodu 5 sano, haweenka uurka leh gaar ahaan haweenka ilmaha ugu horeeya sida, iyo sidoo kale dadka socdaallada ah oo ku socdaala meelaha saxaraha ah oo aanan horeyna aan isaga difaaci karin kaneecadan ama jirkooda uusan difaac xoogan aysan lahayn. Sidoo kale meelahu ay ku badan tahay roobabka iyo huurka uu ka jiro ama meelaha biyuhu ay fadhiistaan oo kalena xanuunkani dadka ku noolna way u nugul yihiin in xanuunka ay qaadaan. Astaamaha lagu garto cudurka duumada markuu xumaado waxaa ka mid ah qofka in maskaxda ay howlgabto, xangulaha oo howlgaba, dawakhaad,
miyir beelid iyo qofka inuu isku arko calaamado dhanka maskaxda ah, qofka inuu koomo u galo. Siyaabo kala duwan oo looga hortagi karo xanuunkan kaneecada ama duumada waxa weeye qofka in uu sameeyo wax la dhaho farsamo mechanical barrier ama farsamadooyin caqabadeed oo inuu ka hortago markaasi caqabada taagan ee keeni karta kaneecada. Masalan haddii uu kaneeca ay jidho inuu iska buufiyo oo sunta kaneecada lagu buufiyo isticmaalo. Mar walba inuu xirto waxaa loo yaqaano mara kaneecada oo lagu daaweeyo sunta kaneecada. Mara kaneecada bahashan kaneecada laga xirto ama sinsiyeeriga loo yaqaano, iyo in meelaha biyuhu fadhiistaan oo la qalajiyo ama la buufiyo, iyo in daaqadaha loo yeelo shabaqyo aysan kasoo gelin kaneecada. Iyo in sidoo kale habeenkii haddii roobaad badan uu jiro oo kale biyaha laga dhuro meelaha biyaha fadhiisinka ah. Iyo in sidoo kale haddii kaneecada zaa'idka tahay ay dadku xirtaan sharabaadyo ama bahala gacmo gashi markaasi kaneecadii aysan awoodi karin inay qaniinto. Sidoo kale in meelaha kimikaalka ay kaneecada u badan tahay oo fadhiisto in lagu buufiyo. In meelaha biyo fadhiisinka ah ama ay ku badan tahay kimikaalka kaneecadani ay soo raaci karto lagu buufiyo sunta cayayaanka loo isticmaalo ama loo yaqaano insecticideska ama waxyaabahan kimikaalka sameeya. Iyo sidoo kale in qofku mar walba uu ka taxadaro nadaafada guud markiis gaar ahaan xilliyada roobaadka ay huurka iyo oo kale ay jiraan. Cudurkan waa cudur aad halis u ah oo aan haddii uusan qofka si dhaqso ah isaga daweyn khatar gelin kara noloshiisa. Haddaba sidee buu qofku haddii aan soo sheegnay calaamadihii, waxaa jira baaritaan qofka uu marayo ama lagu garan karo ama lagu xaqiijin karo inuu xanuunkan hayo. Waayo cudur walba markii laga soo tago calaamadaha waxaa jira baaritaan khaas ah oo lagu ta'kiidsado ama lagu xaqiijiyo inuu xanuunkaasi jira uu isaga yahay in kale. Haddaba qofka waxaa laga qaadayaa dhiig baa laga qaadayaa baaritaan. Waxaa jira malaariyada u khaas oo la dhaho blood film for malaria. Baaritaankaasi waxaa la eegayaa dhiig ayaa la baarayaa si loo hubiyo in parasite-ka uu ku jiro dhiigga iyo in kale. Marka baaritaankaasi haddii dhiigga ku jiro waxay soo qoraysaa iyadaa laba nooc ah, in xanuunkani uu daran yahay iyo inuu xoogaa levelkiisu iska roon yahay. Haddii uu soo qoro wax ka badan 3 koros ama 2 koros, xanuunkaasi waa malaariyada xun ama waxa la yaqaanaa severe malaria. Laakiin haddii baaritaankaasi uu soo baxo 2 koros ama waxa ka yar, waxaa loo yaqaanaa simple malaria ama waa malaariyada caadiga ah. Mid walbana waxay leedahay si gooniya oo loola tacaalo. Haddii aynu eegno runtii daaweynta malaariyada waxay ku xiran tahay nooca qofka malaariyada uu qabo. Sida aan soo sheegnay waxaa sababa parasite ama xasharaad kala duwan baa sababa. Marka daaweyntu waxay ku xiran tahay nooca malaariyada qofka uu qabo, calaamadihii qofka uu hayo, heerka ay gaarsiisan yihiin calaamadihiisa, qofka ma aad buu xanuunsan yahay mise weli xoogaa wuu cayntaa, iyo weliba da'da qofka uu jiro, iyo weliba qofka haddii ay dumar tahay oo kale qofka inay uur leedahay in kale in la fiiriyo. Waayo hooyada uurka leh ee qabta malaariyada si gooniya baa loola tacaalaa. Iyadoo la eegayo qodobadaas oo dhan baa haddana daawadu waxay ku sii xiran tahay doos khaasa bay leedahay oo qofka loo qorayo. Daawooyinka ugu caansan ee dadka loo qoro waxaa ka mid ah daawada la dhaho chloroquine, quinine, hydroxychloroquine, mefloquine, combination of the artemisinin and artesunate. Haddaba waxaa jira malaariyada markii aan laga hadlay waxaa jira malaria complication leh iyo malaria aan complication lahayn. Maxaan ka wadaa complication? Masalan qofka malaria haysa laakiin malaariyadii way ku xumaatay, waxay sababtay heer ay saameyso xubnaha muhiimka ee jirka ee keliyaha, beeryarada, beerka inay saameyso. Marka gaar ahaan xilliyada markuu qofka isku arko xanuunkan uusan iska daaweyn. Sidoo kale malaariyada loo yaqaan uncomplicated waa malaria aan wax complicated ama wax dhiba aan lahayn, kaliya qofka calaamada yaryar isku arkayo, qandho iyo xumad iyo dhabar xanuun iyo afkii oo qalaalaada uu isku arkayo. Sida
guud ahaan haddii aynu fiirino dhakhaatiirtu waxay badanaa usoo qoraan bukaanada da-doodu ay ka weyn tahay 25 sano xanuunka markii ay ka helaan irbada la yiraahdo artemisal injection 80 miligram 6 xabo kadibna waxaa loo soo qoraa paracetamol ama novalgine 500 miligram haddii bukaanku uu yahay qof ilmo ahna waxaa loo soo qoraa sharoobooyin ama loo yaqaano bioquin waxaa loo yaqaanaa bioquin syrup 80 miligram wuxuuna isticmaalayaa 2 xabo paracetamol sharoobo ah iyadana iyo multivitamins sharoobo ah iyo sidoo kale haddii uu bukaanku uu yahay ilmo aad u yar oo 5 sano ka yarna waxaa loo soo qorayaa chloroquine sharoobo ah 60 mililiter malaariyada markay xumaato oo afka qalaad lagu yiraahdo severe malaria waxay saameysaa maskaxda bay saameysaa brain manifestation ama wax loo CNS manifestation bay leedahay waxaan laga yaabaa qofka inay ku sababto in gacan iyo lug ay qalasho complicationka malaariyada lama soo koobi karo aad bay u saameyn badan tahay markuusan qofku iska daweyn ama ay malaariyada ku xumaato ama malaariyada parasiteka jirkiisa ku jira iyo daawada ay iscaabiyaan oo isdiidaan waxaa jira maalin loo asteeyay ka hortaga cudurka malaariyada ee adduunka waana maalin ku asteysan taariikhdu 25 bisha 4 ee sanad walba insha Allah maanta toobikii ku saabsanaa ama qodobkii ku saabsanaa cudurka duumada ama malaariyada intaas baan kusoo afmeeraya insha Allah wixii su'aalaha xagga commentiga insha Allah igu soo qora waa inoo video xiga insha Allah